الله ونحرست قبل الله واسعيه الفاميلكي iyo qaraabadii ehelkii ay ka dhimatana waxaan leeyahay ilaahay qalbiga uu qawajiyo gabadhi ninka dilay inuu baxsan kari oo maanta wadankii uu joogo oo la hayo waxaan mahadcelin qaas oo mahadcelin dawladda Malaysia ee Soomaaliya ku isku tagtay oo ninkii la qabtay alxamdulillah shukr lil caalamiin sababtu waxay ahayd ilmuhu shaaw waxaan haayay yar waxay tiri markii meesha inta iskor dhoobnaa lahayn qaxooti wal xaraadsanaa ku codsanayna caalamul muslim oo dhan in gabadhayna meydkeedana la soo gaarsiiyo taageerahayga waa sida qoyskayga waxay i dhiirigeliyaan sida military waxay ila taliyaan sida aan u daalin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب خالق كسر جان كان عمران إمبار ما شاء الله سبحان الله نكسن وامر كل ما نكره قرط بدن ما أنت وحنا وذا إن كهذا النوع كودي ولاش ذهبوا كيس كذي يا حال كل مرة أيام تكسر له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن سلام لمن كمير بدن ذكر كم حاضرين يسولف هذا معناه ونكسن معلوم كره قرط بدن ما أنت وحنا وذا فيديو سبسو عمران شيء فيديو نحكي سابسين يعني ضد بدنا وحارقنا كومنتي إنه وصل قريب وحمليسي كل عماك هذا الشيء مكعب سنيسي مرتو حادين شيء وحب سلا إنه سجنوا قفل بينه وحري هاي نوصل أنا وكهر لكرت هذا كلام توحى وحل سكين نتري كرام أنا قري كرام معها ووحمة تقانا إن لجهر له آدي أدو في عنت هاي أما آدي أدو لو بهاي إن لجهر وحياة لو بهاي إن لجهر له هاي لكن محمد كذا حقيقة هين إن أسكسو أرضنا ولا في عني مركب ما أنت أصحاب خالق أهرت الحمد لله وحيلا الأمة هذه إن منك الجود وراشن كعنت حق درن كدلي إن كيس كعنت لو هاي أول قبتي أول حري كعنتي يمدي كدلي بقى حبسي اسكولي جيران كيس كانوا حكوا جريئات مادام سومالي كوميونتي جرتو محلها دولة الماليزية إن عكستيني سي إن لسك محلها سوق ربصري أو نينك لسوق قبتي أو هذا نينكي محكمة يلا سوق محلها دم بيقولها إن لو قاضي horta walaashan qabri Allah uu riiqaan Allah shafaa qaado gacan ka xaqtana dishay dadka qaar si aanad sheegayaan waxay ku leeyihiin ma ka soo heshiin maxaa cabsidin hayso cabsi ma jirto waxaan xaqiiq loo hayn dadka lama sheegi karo xaqiiq in la ogaado wanaagsan wixii way dhaceen qadar rabbi joodi qadar rabbi ku dhacday qabo waxa lagu sawaa sax qabo wuxuu ku dhintaa qabo waxa lagu sawaa gabadhan walaashan waxa qorayd in gacan ka xaq daran lagu sawaa ay macnaha waqtigeeda ku dhamaado Allah una xaristo qabri Allah waasiyo familkii iyo qaraabadii ehelkii ay ka dhimatana waxaan leeyahay ilaahay qalbiga uu qawajiyo horta wax farxad weyn maanta anaga aan haysan waxa waaye gabadhi ninka dilay inuu baxsan kari oo maanta wadankii uu joogo oo la hayo waxaan mahadcelin qaas oo mahadcelin dawladda Malaysia ee Soomaaliya ku isku tagtay oo ninkii la qabtay oo la xareeyay hadda oo xabsiga ku jiro gabadhana si la sheegay ayaan inta jaanka la fadhido gabadhu waxay isku hayaan qaraabo man la ogeyn ayaan inta markaa family kala soo hadlay sax ayaan inta okay noo faalo maadaama family kala soo hadlay horta ani gabadha waxa qoon uma lahayn habeenkii yani snapchat ka hadlay oo waxa dhahay gabadha waa inay cadaalad heshaa maadaama gabar Soomaaliyeed la dilay in ajnabi dilay anaga wadankaana joognaa ka dawlad ahaan ka shacab ahaan community ahaan waa inaa u istaagnaa marka dad badan waxay dhaheen waxa ugu danaan inay saamo ugu soo hadlaysa yani gabadha isku fahmilaatiinaya markaas dhahay ma ogeyn laakiin ani Soomaalinimo iyo dumarnimo maadaama yani anaga Soomaali hadaan nahay meel walba hadaa joogno dadkan dad isku xigaan ma naga dhamaato marka gabadha inkastoo isku xaafada ka iimaanay hadda familkeeda qaar kamid ah isla hadalnay dad oo asxaab iyo qaraabo ay yihiin ma bis ogeyn baani ayaga soo raadiyeen oo dhaheen gabadha meeshaas joogto oo ayadana aad ku hor dhibaateeyay soo marka waxaan leeyahay ayadoo Malaysia isla joogay ismeeqa sababtoo ah aniga dadka ma dhaxgali ayadana sida la sheegay dadka ma soo dhaxgali jirin marka taas ay keenayso inaan isbaranay inkastoo liidahay gabadhan waa lagu baray oo waa lagu tusay hadana ma xasuustay ما شاء الله horta dhibaatada jirta waxay tahay gabdhaheena Soomaali waxay ka shaqeeyaan wadankan khaasatan waxay ka shaqeeyaan dhinaca shaqooyinka fudud sida maqaayado oo kale arintan waa dhacday tuntan boodic doontana ma aha wixii qadar rabbi ku dhaceen waxaan ku faraxsanahay dawladda Malaysia maadaama ay gacan weyn ka siisay si loo soo qabto mubaaraha maxaa dambiilaha oo dambigiisa lagu qaaday oo haddana uu xabsi ku jiro oo loo soo weeyay maxkamad maxaa dambiga lagu qaaday lahaa أنا سعرين لو فرحان لقطي ما دام نينك لهايو عدي ما أنت نينك لهان أو نينك مجال كم عمل لها إحنا عملنا عيل يوم حال تيراني وضم كبيح لهايو كله مركا نورت هل وانا كبينا سومالي السينا هل شمال إيش وانا السينا وحاول إن تذكر إن أسكو في الفرن ماشان بيزنس أو تكتي بيزنس كأو تكتي إنك صار أميزك قف كلها هلا ماشي منجر بيلاد هاي تستود بالوك كسر ودن دولة لها جوكتا ودن الواحد كنت قريب جوكتا
si la sheegay war aan ku maqlay kulay dee wararka way isdhaafayeen si loo saan war ku maqlay waxa la dhahay ninkan gabadha xir uu soo bandhigtay way ka diiday qasab ma hadii xir lagu soo bandhigtay inaad macnaha xoog ku heli karto laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaan rajeynayaa gabdhaha Soomaalida in taxadir sameeyaan haddii dhibaato ay jirto community ay jiro dad Soomaaliya ku dhasheen wadan kaliya ku laakiin aniga waxaa mid la yaabanahay ilaa hadda baaritaankeeda ku jira maadaama gabadha ay soo sheegtay ee dhacday ninka inuu dilo rabaa sababta looga aamusay ayaa garan maahay taasna waa soo cadeyn doonaa insha Allah taas video dambaanka maxaa la akaarka doontiin oo soo wado insha Allah kulli dacwad wixii ninkaas loo qaadi lahaa iyo maxaa la qaabkii ninkaas loo xukumi lahaana kisaas warka soo dhacay dawladda Malaysia inoo soo soo bandhigto anigana aan soo bandhigi doonaa waxaan ka xunnahay oo u tacsiinina family gooni ka tagtay samir iimaan iyo qalbi تو الله ينسيه أيضا خبرك الله ونور يقام الله وشفع قاضي كان كخدمنا الشيء مركا وحنا لنا هاي أنت مقالكم كل منا وحنا كتينا سياسية نبتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.